akhyaar sharafta la soo dhawaada meel walba adduunka joogtaan waxaan idinku soo dhaweynayaa xirfad kaab college waxaan rabaa insha allah inaan si kooban muuqaalkan ku fahansiiyo si guud xirfad kaab college waxa uu yahay iyo sida isu diiwaangelin kartid iyo sida fursadaha uga faa'iideysan kartid xirfad kaab college waa college caalami ah oo bixiya tababaro kala duwan oo qofku uu ku baran karo takhasusiyo kala duwan qofku wuxuu wax ka baran karaa xirfad kaab college isagoo jooga meel kasta yani gurigiisa shaqadiisa iyo adduunka meesha rabaa ka joogo waxaan waxu bixinaa qaab online distance ah waxaanu bixinaa tababaro ka badan 70 marka aad muuqaalkan daawanaysid waxaa laga yaabaa inay intaa kasii bataan oo marba marka dambaysa waan sii kordhinaa tababaradeena laba qaab ayaan qofka ugu soo biiri karaa haddaynu hoos soo raacno ama saddex qaabba iska dheh laakiin labada qaab baa ugu caansan inuu qofku ugu soo biiro qaab xubin uu ka noqdo xirfad kaab college يعني koorsooyinka xirfad kaab college waa bilaash oo lacag gaar ah lagagama doonayo soo tababaradaas kala duwan iyo takhasusyada kala duwan oo meesha ku jira lacag lagagama raba gaara laakiin waxaa lagaa rabaa lacag xubinnimo ah inaad bixisid oo ah bille oo ah $15 ama 6 bilood leh oo ah $30 qofkii danaynayana sanadle ayuu dooran karaa oo ah 12 bilood marka inta xirmadaadaas ama xubinnimadaadaas ay tahay active waxaa awood u leedahay inaad takhasuskaa rabtid iyo koorsooyinkaa rabtid iyo wixii aad rabtid aad baratid ayaad insha allah awood u leedahay haddaan marka websiteka isla fiirino waxa weeye halkan tababaradoo kale haddaa ku dhufatid horaa ka tegaysaa tababaradii marka xoogaa khadka iga yar istaagay marka haddaad eegtid oo courses baan ku dhufanay automatically waxaad hore kasoo aragtay tababaradii ayaad hore kasoo aragtay marka halkan tababaradii ayaad ka arki kartaa yani waxaadna arki kartaa iyagoo dhan ama takhasus waa fiirin kartaa tusaale ahaan waxaad eegi kartaa yani adiga wax unbaad rabtaa inaad baratid number 1 talaabada koowaad kuugu fiican waxa weeye horta adiga waxaa lagaa doonayaa inaad dooratid takhasuskaa doonaysa inaad baratid si aadan wixii ugu wareerin tusaale ahaan adiga waxaad doonaysaa computer application baad dooranaysaa show result baad leedahay yani takhasusyada lagaa doonaya computer applicationka waa sidaan IT essentialka bilow officeka windowska ku xiji officeka ku xiji ya sidaa u wad ma garat kasoo qaad markaad IT-ga haddaad rabtid inaad baramisid kaas umaad dhigan kartaa businesska haddaad rabtid inaad dhigatidna oo iska fududahay show result waxaan ku dhufo business dooro kadib takhasusiyadii waa kuwaas takhasusyadas kala duwan oo businesska la xiriira ayaad baran kartaa wayna kasii badan karaan mustaqbalka haddaad doonaysid marka waxyaabaha software developmentiga la xiriira saanaad ugu dhufanaysaa dhag waa kaa marka badanaa waxaa ka bilaabaysaa HTML CSS kadibna markaas luqadaha kale sida javascriptiga iyo waxa ayaad ka bilaabaysaa saasa korba usii soconaysaa laakiin waxaa iyadana muhiima maadadan aad muhiim u ah soo fundamentals programming la yiraahdo sidaas oo kale marka network engineer haddaad rabtid ama maaragtay network inaad maaragtay khabiir ku noqotid saana ugu dhufanaysaa kadibna takhasusiyadiisan CCNA starter baa ka bilaabaysaa 1 2 3 saasaa ku soconaysaa ma garad cyber security haddaad rabtid inaad dhigatid isagana saas oo kale fundamentals ka bilaabaysaa kana ku xijinaysaa saasaa ku soconaysaa maxaa kaloo marka meeshan ku yaala marka saas oo kale database-kii saas oo kale takhasusyadaas kala duwan oo businessku ka mid yahay oo maaragtay muhiimka ah dhammaantood ayaad insha allah wada diyaarin kartaa marka takhasusyadan ay kasii badan karaan intaan hadda aan tilmaamay oo luuqadoo kale soo gelaysa waxyaabo kaloo kala duwan ba soo gelaya xigmadda marka waxa weeye dhammaan takhasuska aad dooratay tusaale ahaan computer application baad dooratay oo aad rabtaa inaad iska dhistid asaasigiisa waxa weeye koorso kasta membershipkaadii ayaad ku gaadanaysaa enroll with member baa dhihi doontaa hadhow aan si fiican isla arki doonaa insha allah haddaan marka pagekeena ku noqono qofku markuu isdiiwaan gelinayo ama halkaan ku dhufan karaa waa isku mid ama sign up ku dhufan karaa haddaa waxay rabaa websiteka hore usoo raacno waxaa arki kartaa halkan qofka processka laga doonanayo xirmada uu rabo inuu doorto macnaha ama maarata xubinnimadiisa bille iyo 6 biloodle in laga doorto kadibna markaa waxa weeye shahaadadiisa maarata online wax ku baranayo kadibna marka programkiisa tababaradiisa dhamaysto inuu shahaadadiisa soo dalban karo saasay marka tababaradii saasay kugu diyaarsan yihiin marka qiimahan waa qiimaha single course qofku ku iibsanay laakiin adi single course ma u baahnid waxaad samaynaysaa adi membership macnaha xubinnimo ayaad gadanaysaa kadibna dhammaan koorsooyinkaas oo dhan ayaad si bilaasha ku dhiganaysaa insha allah marka xubinnimada waa idiin sheegay bille iyo 6 biloodle baa ugu caansan sanadlana qofku hadduu rabo uu ka dhigan karaa si uu awood ugu yeesho macal sanadka wixii la soo geliyo dhan inuu maaragtay dhigan karo insha allah intaa haddaba haddaan ka tagna akhyaaray qofku marka see buu isu diiwaangelin karaa qofka laba option waaye inuu isagu isu soo diiwaangeliyo oo
isagu intuu pageka booqdo sign up dhaho soo diiwaan geliyo hadday dhib ku noqotana annaga hadii soo diiwaan gelin labadaba waa isku mid wax farqi uma dhexeeyaan hadduu qofka diiwaan gelinayo meesha sign up ku qoran tahay ayuu qofku dhufanaya sign up ku dhufatay halkaa waxaa gelinaysaa emailkaada tusaale ahaan waxaan dhahaynaa warsame@gmail.com usernamekaada isla waxaad ka dhigan kartaa warsame ma fahamtid usernamekaada emailkaada wax ka bilowdo kale ama magac yar oo fudud baa ka dhigan kartaa halkan password fudud xarafka koowaad capital iyo kala ka dhigan kartaa so warsame waad ugu horeysa weyn tahay 12 baan ka dhiganaynaa warsame 12 soo xafantay ma passwordka waxa uu laga rabaa inuu 8 jifar uu yahay kadibna waxaa la haysaa sign up bas baa dhacaysa kaliya tan iska ilaali tan uma ku dhufan just sign up bas ku dhufanaysaa marka intaa saasaad isku diiwaan gelinaysaa haddaad doonaysid inaad is diiwaan gelisid marka saasaad isku diiwaan gelisay oo hadda emailkaadii saasoo ku diiwaan gashantahay adoo warsamo ah saasaa ku shaqaynaysaa haddaa laakiin hadda xirfadkaab college aan kusoo noqdo haddii adigu is diiwaan gelin oo annaga ku diiwaan gelin already user iyo password kuu soo dirnayna userka iyo passwordka aan kuu soo dirnay yaa meeshaan ku gelaysaa oo meesha warsame halkan uu ka galay ya logout baan dhahayaa 1 second hadda qofkan sign up buu dhahayay moogtahay aduu login baa dhahaysaa ilaan user iyo password oo kuu soo dirnaya xitaa warsame ahaan hadda qofkan is diiwaan geliyo kala haddaad tahay hadhow marka labaad waa gelaysa just login baa ku dhufanaysaa marka halkan unbaad emailkaadii gashanaysaa maxaa dhahdaa kadibna passwordkii baa gashanaysaa alright way sidaasaad ku gashay markaad userkaadi passwordkaadi gashay meeshii way isbedeshay sign up oo ah isdiiwaan geli iyo sign in oo ah gal way isbedeshay kadib halkaanaad ku dhufanaysaa enrolled courses daa madaxaada ku dhufatid enrolled courses koorsooyinka aad iska diiwaan gelisay wishlist oo koorsooyinka aad rajaynaysid kuwiisyada waxa orderadaadii waxa oo dhan arki kartaa marka hadda tusaale ahaan haddaad fiirisid membershipkaada wax membership active ku ah hadda ma jirto weli maada waxba soo dalban ma garad laakiin dhib ma laha waa u imaan doonaa haddana madaxaada ku dhufo haddaad fiirisid enrolled courses waa koorsooyinkii kuu furnaa ilaa hadda marka wax koorso ah oo aad isu diiwaan gelisay ma jirto sababtaa waxba ma soo dalbanba membershipna ma soo dalban waxna kala ma samayn marka qofka anoo haddaan diiwaan gelin already membershipka ku darnaa automatic membershipka ku jira laakiin haddaanan anoo ku diiwaan gelin membershipka marka hore kuma jirtid marka wax soo codsanaysaa kadib baa lagugu darayaa moogtahay systemka waayo marka qofku seebo marka hadda anoo waxaan hadda diyaarinaya waxa weeye qofku siduu membershipka usoo codsan lahaa marka halkaana soo raacaysaa kadib tusaale ahaan koorsooyinkii ama takhasusyadii mid kamid aad ku dhufanaysaa ama koorso ama takhasus wax hartid ha noqoto saan oo kale tegi kartaa tusaale ahaan courses baa tegi kartaa kadibna takhasuskaa rabtid oo kale kasoo qaad computer application baa rabtaa saasaa tiri kadibna IT fundamentals baa dooratay oo 38 lecture ku jirto waayahay macna koorso waa inaad dooratid waxun koorso ah si aad macnaha usoo cusutid membershipkaada waa option taas option kale inaad halkaan inaad caadi usoo cusutid adoo homekaada jooga inaad just membershipka saa usoo dalbatid bille 6 bilood la dhag saasna waa awoodaa marka aduu hadda waxaad dooranaysaa tusaale ahaan koorsooyinkan koorso kamid a dooranaysaa waxaan marka dooranaynaa bille xirfadkaab bille ka waa isku mid ama qaabkana usoo dalban kartaa halkan inaad joogtid oo dhahdid bille aad dooratid waa isku mid wax farqa uma dhexeeyaan ya wax farqa uma dhexeeyaan isku meel buu ku geenayaa marka billan dooranaynaa tusaale ahaan waayahay halkaa marka waxa weeye PayPal baa wax ku bixin kartaa automatic buu jaranayaa kaas uma baahna maaragtay soo aqbalaad iyo wax lamid ah marka hadda inoo PayPal-ku automatic horu ka jaranaya nagarad PayPal-kaada uma ku xiriirinaysa haddana wax dooranaya PayPal check markay taa automatic waxa la rabaa nidaamka inaad raacdid haddaa kasoo diraysid goolis qaabkana raacaysa haddaa kasoo diraysid telesom qaabkana raacaysa haddaa kasoo diraysid hormuud qaabkana raacaysa lambarku waa kan lacagta lagu soo diraya mar walba xirfad kaab baa kusoo baxaysa haddaad kasoo diraysid xawaalad iyo wax lamidana lambarkaan isticmaalaysaa magaaladan boosaasaa ka dhigaysaa waayahay maxaa marka ku raacaa sidaas markaad usoo dirtid isla markaba waxaad soo samayn doontaa whatsappka ayaad isla lambarkaana whatsapp leh baad usoo reebaysaa fariinta koorsahaasan yani bilan soo dalbaday ec daaya macnaha emailkaada iyo soo qoraysaa intaas keli insha allah si macnaha lagugu activate gareeyo waayahay kadib waxaan leenahay submit check out baan leenahay lambarkii waa qoratay lacagtina waa soo dirtay mogta ilaa wax waa ujeedaa waayahay intaa markaad samaysid hadda membershipkaada waa aragtaa waa pending
waxa weeye sababtaa weli lama soo aqbalin maadaama wuxu ay tahay lacag lagaa check garanayo oo aad meelo kala duwan kusoo diraysid. Okay, intaa haddaba haddaynu samaynay weli hadda membershipkaadi active ma haddaynu fiirino warsama soo fur memberships yani membershipkaadii weli active ma aha. marka maxaad marka u baahan tahay marka intaa soo samaysid inaad nala soo xiriirtid annaga haddaad se laakiin aad maxaa la yidhahdaa annaga ku diiwaan gelin annaaba kugu soo darnayba. marka insha allah membershipkaada marka lasoo activate gareeyo hadda qofkan membershipkiisa waan soo activate garanayna insha allah. marka aan isku dayna marka hadda inaynu koorsooyinka mid un iska dhigano. haddaan ku dhufano hadda koorsadan oo kale waxa weeye oo aad halkan ku dhufatay get start enroll with membership baa markaa dhow dhihi doontaa laakiin lama approve karin hadda haddaad waa inaad geshid waa arkaysaa isugu ku leeyahay inta membershipkaada lasoo approve garaynayo. waayahay aan aragna marka la approve gareeyo siday noqonayso. marka la soo xiriirtid lambarka marka 37 ah lambarkaas waxa weeye marka waxaad leedahay dee lacagta soo diray isoo activate gareeyay marka waa lagu soo activate garanaya isla markaba kadib waxa weeye marka hadda haddaynu refresh dhahno ama any course aan doorano tanba ha noqotee saan baad ugu dhufanaysaa enroll with membership baan leenahay. marka hadda waxaa dhahaysaa enroll with membership soo maartid uu kuu ogol yahay tirooyinkaadi uu kuu tirinayaa. waaye marka waa aragtaa coursesaasi kugu diiwaan start course kadibna dhahaysaa sidaas ayaad koorsadii ku dhiganaysaa iyo casharadeedii. curriculumka halkaan kasoo furanaynaa soo maartid yani chapterkii kale yani casharkii kale saasaad usoo furanaysaa. casharka full screen waa ka dhigi kartaa ya wax dhibaato ay leedahay ma jirto. complete legacy lesson baad dhihi kartaa previous lesson casharkii hore aad dhihi kartaa curriculumka kusoo wada noqon kartaa. haddaa wuxuu adaarti inaad iska xirtid curriculumka waa iska xiri kartaa waana soo furan kartaa koorsado dhanna baag baad dhihi kartaa. hadda marka xirfadkaab kusoo noqo college ama xirfadkaab.com haddaad marka dabacdeed inaad yani koorsadaada rabto dib inaad u geshid meeshan inaad soo aadid uma baahnid meeshan waa general moogtahay yani just waxaad u baahan tahay inaad madaxaadii ku dhufatid xaggaas ama magacaada ku dhufatid kadibna enroller courses ku dhufatid so koorsooyinka kuu diiwaan gashanaa ayuu ku tusaya waa kan. hadda membershipkaadi maadaama active yahay bilaha ahaa adee 6 bilood la dooran karta sanad la dooran waxaad ba dooran kartaa yani koorso kastoo kale aad doonaysid ayaad dhigan kartaa. hadda qofkan koorso kaloo kale tusaale ahaan waxaan tegaynaa maanta waxaan tegaynaa cyber security baan wax ka fiirinaynaa saanaan leenahay waxa weeye fundamental of cyber security baan dooranaynaa waxa weeye kadibna waxaynu ku dhufanaynaa enroll with member baad dooranaysaa taa hoosan baad ku dhufanaysaa mar walba start course kadibna koorsadii hore aad ka bilaabaysaa iyo casharadeedii waa kaa chapterskii dhankaani kaaga muuqdaan kadibna casharkii xaggan waa kaa casharkan daawo kan daawo kan daawo kan daawo saa ku soco baag baad dhihi kartaa iyadoo dhan sidaasaa marka hadda 2 course marka membershipkaadii waad haysataa unlimited course fursad wax la heli karo ma ahan wax allaala waxaad jeceshahay waa iska baranaysaa waa iska dhiganaysaa waa waxbarasho aan kuu xadidnayn wey. waxaan rabnaa ardayda sharafta leen ogeysiino inaysan banaanayn casharada xirfadkaab college in lala dego ama dib looga ganacsado ama meel kaleba qof kale si kale looga sii faa'iidaysto. userka qofka uu iska diiwaan geliyay isaga keliya loogu talagalay si shakhsi ah waxaa la rabaa isagu inuu ka faa'iidaysto waxaas iyo fursadaas uu haysto uu si shakhsi ah uga faa'iidaysto wuxuu ka dhigan lahaa ka dhigto sidaasna maarata wax ku barta insha allah haddii ilaahay yiraahdo casharadooda systemkiisana ku daawado meeshiisana ku practice garaysto maadaama marka uu systemkeenu yahay system streaming ah waqti badan runtii aan soo gelinay waxaan rajeynayaa arrintaasna inaad ixtiraamtaan insha allah dhammaantiin. mar saddexaad idin kusoo dhaweynaya xirfadkaab college keliya marka waxaad u baahan tahay arday ahaan markaad doonaysid in waxbarashadu ku hagaagto oo aad xirfadkaab college si fiican wax uga faa'iidaysatid xirfad fiicanna ka baratid waxaa u baahan tahay kow inaad dooratid takhasus. horta marka waxaad u baahan tahay xirmo inaad dooratid maxaa kugu filan adiga waxaad baranaysid ma bil baa kugu filan ma 6 bilood mise sanad marka xirmada dooro macnaha oo membershipkaadii ama xubinimadaadii dooro. xubinimada markaad dooratid waa faceka koobaad faceka labaadna waxa weeye inaad dooratid takhasuskaad diyaarin lahayd ayaantaas markaa kadibna aad takhasuskaas hadba level saa u wadid ya takhasusyadaas kala duwan oo aan bixinayno inaa hadba mid aad saa u dhigatid ayaa lagaa doonaya insha allah. listiga marka takhasusyada waa kuwan way kala duwan yihiin ma business management waa artaa wax la xiriira inaad si fiican u baratid ma computer application ma network ma cyber ma computerized accounting ma database ma system administration software development
luuqadaha ma personal development taa personal development waan haynaa runtii iyadana ah field aad muhiim u ah oo qofku nafsadiisa ku horumarin karo marka dhammaan waxyaabahaas oo dhan ayaad takhasus baad dooranaysaa kadibna koorsooyinka ku dhex jira ayaad ayar ayar isaga dhiganaysaa ayaa ama dhowrkii beriba ama dhowr iyo tobankii beriba course aad dhamaynaysaa normally coursadii waxaa ku dhamayn kartaa yani adiga janiskaada ku xiranta koorsooyinka dhaardheer waqti bay qaadan karaan laakiin koorsooyinka koo kooban muddo dhowr iyo toban beri baa ku dhamayn kartaa haddaad macnaha degdeg ku dhamaysa ama ka yar baa ku dhamayn kartaa aday kugu xiran tahay saa janis ula haysid bay ku xiran tahay inta artid baa dhigan kartaa adigay maaragtay kugu xiran tahay asbuuc baa ku dhamayn kartaa haddaad maaragtay janis fiican haysatid marka insha allah waxaan rajaynayaa khayr badana idin rajaynaya dhammaantiinna si fiican waxay uga faa'iidaysan doontaan xirfad kaab college meel walba aad joogtaan mar laba mar saddexaad baa xirfad kaab college isku soo dhaweynaya waa injineer abyad asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu